Kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona. Xalay ciyaartay Barcelona xalay waa laga badiyay 8-2 ayaa lagu tumay. Waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta Bayern Munich. Barcelona koobka UEFA Champions League waa iskaga hartay 8-2 ayaa lagu garaacay. Waa markii ugu horeysay Barcelona 5 gool laga dhaliyaa UEFA Champions League. Taariikh ayaa loo diiwaangeliyay kulankii xalay ee wada ciyaareen Barcelona iyo Bayern Munich. Sidoo kale Barcelona ayaa la sheegayaa in tababaraha Quique Setién shaqada laga ceyriyay, waxaana laga yaabaa labo tababare ay raadi doonaan kuwaas oo ah Xavi iyo tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino. Midkood ayaa laga yaabaa in loo magacaabo tababaraha cusub kooxda kubadda cagta Barcelona. Ciyaartii xalay waa daabatay taageere sidee kula ahayd yaa eed saari lahayd in kooxda kubadda cagta Barcelona 8-2 lagu tumo. Philippe Coutinho kooxdiisa Barcelona 2 gool ayuu ku dhaliyay, sidoo kale 1 goolna uu ku caawiyay. Coutinho in kooxda dib loogu soo celiyo ama in la gado see u aragtaa taageere dhanka comment inoogu soo reeb. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Intaan muuqaalka isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.